taliyaha qaybta gobolka Awdal ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa isagoo ka warbixiyay howlgal ay ciidamadiisu ku soo qabteen dad la sheegay inay ka ugaarsanayeen diinka isla markaasina laga soo qabtay deegaanka Calaxayd ee degmada Baki. Taliyaha ayaa sheegay in dadka lagu soo qabtay ugaarsiga xayawaanada ay sheegay in uu sharciga la tigsan doono. Bismillahirrahmanirrahim. Sida ku warqabkiinu ama ilu waan maqasheen maalmahan 8 saacadood waxaan ku maqnayn aagan bari ee gobolka Awdal jiida Calaxayd iyo suuqa area howlahayagu kulli iyo dhaqdhaqaaqayagu waxay u badnaan marka hore ku nabadgeliyo markii dambe waxa ku soo biiray oo ka warhelay in ugaad laga dhoofiyo kontrabaa sida baabuurka halka jooga xerar oo sida dhowr iyo 60 habo oo diimama oo ay saddex nin oo reer Awdal in lagu hayo Calaxayd kadib markii inay kabriis gacan ku dhigeen meesha waan gaaray waa tagay waan soo qaadnay waan xereynay waxaan kulli fariin igu dhiibnaa inaan naga gaarsiisaan dad badan oo waxa ku howlan baa jiro oo sida diimankan iyo harimacdada iyo shabeelada qaar soo waxa ka ganacsadaa jira guryaha dambe hada ku soo taraya jira waxaan doonayay inaan fariin u diro dadka waxa ka shaqeeya inay faraha kala baxaan oo ay ka waantoogaan oo ay faraha ka qaadaan waayo xaraan weeyaan lama ogola sharci uma ogola waa xawii khayraadkii dadka ka dhaxeeyay marka qofna si gaar ah kaliya uma isticmaali karo deedii kale lagu qabsan sida kuwan kale uma sharciga la horgoyn doonaa intaasaan doonayay inaan ugu wargelino oo fariinta naga gaarsiiyo gobolka Maxamed Bilibili Harwanaag News magaalada Boorama.